ardayda deegaanka ilka weyne oo hore ay uga farxiyeen saddex haweena oo muxsiniin ah isla markaana u dhisay goob waxbarasho oo ay baahi weyn u qabeen ayaa sidoo kale mar labaad ka farxiyay oo u keenay agabkii ay ku fadhiisan lahaayeen ardaydaasi maadaama ardaydaasi ay hore ugu fadhiisan jireen daasado duugoobay oo maryaha ay xidhan yihiin iyo naftoodaba ardayda dhibaato weyn ku hayay saddexdani haween ee muxsiniinta ah oo soo wakiishay Sheekh Maxamuud Yuusuf Kaahin iyo Axmed Maxamed Ibrahim oo kamida ururka Himila Action Group ayaa deeqdani oo ahayd mushamacyo iyo caawiyo iyo sidoo kale agabka nadaafada sida balayeeyo iyo baaldiyo gaadhsiiyay ardayda deegaanka ilka weyne Sheekh Maxamuud Yuusuf Kaahin oo kamida ururka Himila Action Group oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa aad ugu duceeyay haweenkani marka labaad ka farxiyay ardaydaasi ka dhisna qolka labaad ee madrasada ahaa oo aanu keenay agabkii googasha shamciga iyo aanu keenay caawishii lagu nadiifiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan mahadnaq iyo ducada u diranaa hablihi muxsiniinta inta kana ugu daray ilaahay waxaan ku baranaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu khayr qaba wadigo ilaahay cibaadada iyo amalka wanaagsan iyo arsaaqada intaba waasiyo ilaahay barkad geliyo ilaahay waxaan u weydiinaa subhanahu wa ta'ala in rabbiga warsaar saad waasa aad binu maasay waxaan mudayn lagu dayo saas oo kale dadkooda u damqadeen ay ku soo celiyeen ma sha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala inta kalena ha garansiyo iyagana ka abalmariyo ardayda deegaanka ilka weyne ayaa iyaguna aad ugu duceeyay haweenkani u soo goglay goobtoodan waxbarasho maadaama ay hore dhibaato ba'an ugu hayeen daasadahani duuga ah oo ay ku fadhiisanayeen muddo badan waalidiinta ardaydani ayaa sidoo kale u duceeyay haweenkani muxsiniinta ah ee ka soo farxiyay ubadkooda taasina wayna soo gaadhay shamci gogoshii garanaysa wixii lagu fiiqayay tuwaaladii yareeya wixii oo dhammaystiran baa soo gaadhay Allah ina barakay waan in mahad naqana ilaahay ina barakay waxa san ilaahay ina barakay halkan waxaan kaga gudoonay hablaha muxsiniinta ee soo diray guriga horena u dhisay maantana gogashiisii keenay mushamacii oo gaadhay iyo cawdi oo gaadhay halkan aan kaga gudoonay waxaan u mahadnaqaynaa hablaha muxsiniinta allaha ka jasaa'isiyo wa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Gaadhsiiyay